magaciisa oo buuxa waa Axmed Ibraahim Al-Ghazi waxa loo yaqaanay Axmed Gurey waxa uu xukumi jiray boqortooyadii cadal ee Soomaalida ahayd waxa uu ku dhashay meesha loo yaqaano Hobart oo ku taal Soomaali galbeed sanadkii 1560 miilaadiga waxa uu dhalinyaronimadiisii ku qaatay magaalada Zaylac waxa uu guursaday boqorad loo yaqaanay Bati del Wambara gabadhii boqorkii Zaylac Axmed Gurey waxa uu ahaa geesi kamid ah geesiyaashii Soomaalida soo maray waxa uu ahaa hogaamiye u dhashay hogaamiyinta dadka muslimiinta iyo Soomaalida kacdoon shacab oo hogaaminayay Imaam Axmed Gurey ayaa curtay ilaa ugu dambeyn hogaanka boqortooyadii cadal sanadkii 1527 uu gacanta ku dhigay wuxuu dajiyay siyaasadda iyo maamul awood badan wuxuu sare u qaaday dhaqaalaha wuxuu sugay amniga iyo deganaanta dadka sidoo kale Axmed Gurey waxa uu dhisay ciidan xoogan oo isugu jira Soomaali iyo muslimiinta kale ee deganayd boqortooyadii cadal ciidankii Axmed Gurey waxa uu badnaa qoomiyadda Soomaalida ee ku noolay dhulkii boqortooyada cadal iyo kuwii ka agdhowa Axmed Gurey waxa uu bilaabay inuu ciidanka iyo xuduudaha si uu u sugo amaanka xuduudaha u dhaxeeya Xabashida iyo cadal Xabashida oo dhibaato iyo carqalad joogto ku haysay dadka Soomaaliyeed iyo boqortooyadii cadal ayaa ka xumaatay in dadkii ay dhibaateyn jirtay ay dib isu soo abaabulaan waxa ay isku dayday Xabashidu inay kala dhantaasho ciidankii muslimiinta waxaana xuduudaha ka dhacay dagaalo u dhaxeeya labada dhinac dagaalka markuu bilowday Xabashidu waxay u maleeynaysaa in Soomaalida dagaalkoodu yahay mid iska yar oo ay burburin karto balse arrinku sida waa ka sina ballaartay Abriil 1529 waxa dhacay dagaalkii loogu magac daray Shimbira Koore waxa uu wax ka bedelay guud ahaan jawigii ay ku kala sugnaayeen muslimiinta imbaradoriyadii cadal iyo Xabashidii Kristaanka ahayd dagaalkani waxa uu ka dhacay meesha loo yaqaano Shimbira Koore oo qiyaastii 130 kiiloomitir kaga beegan dhinaca koonfur bari Addis Ababa caasimadda Itoobiya maanta ciidanka Itoobiya waxay ahaayeen maalinkaasi 16,000 oo askari oo fardoolay ah iyo in ka badan 20,000 oo ciidanka lugta ah dagaalkani waxa uu geystay khasaare aad u badan oo labada dhinacba soo gaaray ciidanka Imaam Axmed Gurey ayaa ku gacan sareeyay dagaalka waxa la sheegay in dagaalkaasi ay ku shahiideen ku dhawaad 3,000 oo Soomaali ah ciidanka imaamka waxa uu suura gashay inay gaaraan dhulka Shewa oo hadda ah bartamaha Itoobiya waxa Xabashida dagaalkaasi kaga dhintay 3 laab inta kaga dhigamatay Soomaalida sanadkii 1531 Gurey waxa uu ku guuleystay inuu jabiyo wajigii u dambeeyay ee iska caabinta uu waday ninkii lagu magacaabi jiray Lebna Dangal oo ahaa boqorkii Xabashida isagoo u sameeyay horumar dheeraada bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi waxa uu galay deegaanka Tigreega maanta loo yaqaano isagoo oo jabiyay ciidamadii Dangal ee ku harsanaa halkaas sanadkii 1533 ciidanka imaamku waxay ka talinayeen guud ahaan dhulkii taariikhiga ah ee Amxaarada xilliga Itoobiya waxa boqor ka ahaa Lebna Dangal waxa xilka qabtay 1508 waxa uu hayay ilaa 1540 boqortooyadii jirtay muddo ka badan 400 sano waxay ku wiiqantay dagaal socday 15 sano oo kaliya Axmed Gurey waxa uu qabsaday 4 meelood 3 kamid ah guud ahaan dhulkii Xabashida waxaana la sheegay in dadkii xilliga ay ku noolaa Itoobiya 10kii qofba 9 kamid ah ay qaateen diinta Alle ee Muslimka 1535 boqorkii Xabashida wuxuu arkay in xaaladda ay ku xun tahay ciidankiisuna wuxuu yaqiinsaday inuusan u babaadhigi karin ciidanka imaamka wuxuu gargaar military weydiistay dawladdii Boqortooyska waxaana ka codsaday inay soo gaarsiiyaan gurmad degdeg ah si loo badbaadiyo intii ka harsanay dhulkii Xabashida culayskii iyo duulaankii faraha badnaa ee ciidanka imaamku ay ku hayeen ciidankii Xabashidu waxa uu ku qasbay inay waayaan fursad ay dib isugu soo habeeyaan dabna ku shitaan waxa la waayay dad isku imaada oo muddo wada fadhiya iyagoo ka cabsi qaba inay arkaan ciidanka Imaam Axmed Gurey taasina waxay sabab u noqotay inay hilbihii ku cunaan ceyrinka halkii ay ka karsan lahaayeen arrinta oo ilaa hadda dhaqan ahaan ka jirta Itoobiya Lebna Dangal ayaa geeriyooday 1540 isagoo ka baxsanaya ciidamadii Axmed Gurey dhimashadiisa kadib waxa xukunka la wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabi jiray Galdawoos isla markiiba waxa uu heshiis la galay boqortooyadii Boortaqiiska si uu uga caawiyo la dagaalanka Axmed Gurey Boortaqiiska isagoo oo heshiiskaasi fulinaya waxa uu sanadkii 1541 soo diray ciidamo hubaysan oo gaaraya ilaa 400 oo askari oo ku hubaysan qoryihii ugu casrisanaa xilliga waxayna ka soo degeen degada Musawac ee maanta dalka Eritrea ku taala ciidamada Boortaqiisku waxa hogaaminayay Christopher Dagama Imaam Axmed Gurey waxa uu carabta ka helay 2,000 oo musketi ah ama qoriga loo yaqaan musketi ciidanka Axmed Gurey iyo isbahaysiga Xabashida iyo Boortaqiisku waxa dhaxmaray dagaal aad u qaraar Axmed Gurey waxa uu suura gashay isla markiiba inay gaarsiiyaan cadowga jab barba marka ka dambaysa si xoogaysanay waxay ka takhaluseen kala bar ciidankii Boortaqiiska oo uu ku jiro Christopher Dagama balse 22 Febraayo 1543 dagaal gaadma ah oo isbahaysiga Xabashida
xabashidu soo qaadeen xilli habeen ah bariga harada ugu weyn Itoobiya ee Taana oo hoostaga gobolka Amxaarada ayuu ku shahiiday Imaam Axmed Gurey Allah u naxariisto. Imaam Axmed Gurey waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah dagaalkii uu la galay Boortaqiiskii doonayay inuu la baxo qabriga nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ciidankii Boortaqiiska ayaa ka soo degay dalka Eritrea si ay halkaas uga duulaan Sacuudiga oo xilliga hoos tagayay boqortooyadii mamaaligta ee fadhigeedu ahaa Masar. sida aad baabka uga jeedaan Eritrea waxay ku aadan tahay Makka iyo Madiina. Imaam Axmed Gurey waxa uu taariikhda ku galay inuu ahaa hogaamiye aad u adag oo dagaal adag la galay boqortooyadii hore ee xabashida iyo taageeraheedii ugu weynaa ee Boortaqiiska.